والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور رملة محمد علي، كنت تخصصي دوينتا إلى تعالي حنونة كل عرورتا، كان هو الجلا إسبيتال كيردميل إسبيتاليست هوسبيتال. أسبوعاً الله أستيي أسبوعاً ناس نوجنتا أدونك أنا كفايدة سنة إنه أسبوعاً الله أستيي ناس نوجنتا حنجي على سنة ناس إذن سوقد بينه برشة صومالات سوقد بينه أم أصابا دقنا فإذا كلية ناس نوجنتا لا ده هاي ناس نوجنتا مركلا ده هاي فإذا بدن أجرب نقوله الريان هويدا يدلانكا يمد سد حاذو برشة جود أهان محو فإذا كلية ناس نوجنتا marka laga hadlayo faa'iidada cunuga oo ahmida ugu badan ama qofka ugu badan ee ka faa'iideysanayo ama dan weyn ee ugu jirto inuu helo naas nuujin sax ah waqtiga loogu talagalay iyo inta loogu talagalay oo tiro caani inuu helo faa'iidada ugu horeysa ilmaha ka helaya naas nuujinta waxay tahay in ay ka helayaan nafaqo dhameystiran vitaminiska u baahnaa jirkooda sidoo kale faa'iidada labaad oo aad muhiim u ah waxa waa inuu ka hortagayo ama jirkiisa uu siinayo difaac ka ilaalinaya xanuunada faafa faa'iidada saddexaad oo ah in uu ilaalinayo dheefshiidka caruurta inta badan waxa ognahay ilmaha la siiyo caanaha naaska hooyada aan ahayn 6 bilood ugu horeyso inay ka xanuun badan yihiin ilmaha kale waxa keenayna waxay tahay ilmaha calooshooda markii la dhaho dheefshiidka waxa aad ugu sahlan uuna diyaarsan yahay inuu shiido caanaha hooyada oo ku sameeyo maxaa lahaay macnaha ka shaqeysiyo process marsiyo marka loo fiiriyo caanaha aan naaska hooyada ahayn waxa uga sahlan una fiican caanaha naaska hadii marka cunugi uusan helin naas nuujin sax ah 6 bilood ugu horeyso oo loo yaqaan exclusive breastfeeding oo ah cunuga in aan la siinin wax aan naaska hooyada ahayn ilmahaas oo kale dhibaatooyinka ugu badan ee la kulmaa waxa kamid ah in uu ku soo laabto shuban tiro badan in infectionada caloosha uu ku dhaco in xataa koriimadooda dambe ee xumaatay ilmaha faa'iidooyinka ugu muhiimsan waxay tahay ilmaha inuu ku yar yahay naaska caanaha markii la xasaasiyad markii la dhaho ilmaha inay caanaha xasaasiyad ku noqdaan hooyada naaskeeda uu ku yar yahay caanaha naaska hooyada uu ku yar yahay faa'iidada kale aadka muhiimka ah waxa waaye cunuga markuu helo 6 bilood oo exclusive breastfeeding ama naas nuujin kaliya oo wax kale aan la siin 6 bilood ugu horeysa noloshiisa wuxuu ka ilaalinayaa ama uu yareenayaa infectionada cunuga ku dhaca sida infectionada ku dhaca dhagaha infectionada ku dhaca sanbabada wuxuu kaloo aad uga ilaalinayaa in cunuga garoodkiisa aan koriimadiisa maskaxiyan iyo jir ahaan inuu aad u ilaaliyo aad u dhiso nuujinta saxda waxay ka ilaalinaysaa in cunuga uu helo ama uu ku dhaco miisaan aan caafimaad ahayn waxa waaye in cunuga ubeys uu noqdo ama miisaanka badan uu koro waxa ognahay marka cunug walba ay helo breastfeeding ama naas nuujin fiican labada sano ugu horeysa noloshiisa qaasatan 6 bilood ugu sii horeysa ee noloshiisa wuxuu ka jaanis caafimaad fiican yahay ilmaha aanan helin naas nuujin sax ah waxa jirta faa'iido kale oo u leeyahay hooyada faa'iido hooyada u leeyahay waxa ugu horeeya waxay tahay in hooyada uu maxaa la dhahaa iskaro uusan ku dhicin nooca labaad ee loo yaqaano type 2 diabetic sidoo kale in hooyada uusan ku dhicin ama hoos u dhaco in kansar uu ku dhaco qaasatan kansarka naasaha ama kansarka ku dhaco waxaansidayaasha jaaniska ugu dhici kara way yaraanaysaa markay tahay hooyo sameyso naas nuujin sax ah sidoo kale wuxuu yareenayaa breastfeedingka ama naas nuujinta waxay yareynaysaa in hooyada xilliga umusha ay ku jirto oo uusan ku dhicin waxa loo yaqaano isla hadalka ama xanuunada nafsiga oo ku badan hooyooyinka intay uurka leeyihiin intay umusha yihiin ku badan kaasoo kalena hooyada walba oo cunugeeda close ku ah ama aad ugu dhow naas nuujinta u badiso waxaa la ogaaday in aad ugu yar yihiin in uu ku dhaco xanuunada nafsiga xilliga umusha ay tahay markii laga hadlayo naas nuujinta dhinaca bulshada maxay faa'iido u leedahay waxaan ka soo hadlay cunug koriimadiisa inay faa'iido u leedahay maskaxiyan iyo jir ahaan caafimaad ahaan qayb ay ka qaadanaysa xataa cunuga maskaxdiisa dhow mustaqbalkiisa waxbarasho cunug walba naas nuujin fiican helay in uu asagana helayo ka maskax fiicnaanayo ka macnaha
waxbarasho ahaan ka fiicnaanaya cunuga kale waxaa jirta faa'iido kale oo guud ahaaneed bulshada ama qoyska oo naasnuujinta u leedahay waxaa ka mid ah uguna muhiimsan in uu ilaalinayo dhaqaalaha familka waxaan dareemi karnaa ama aan ognahay cunuga markii uusan helin naasnuujin sax ah waxaa ku badanaa soo sheegnay inuu ku dhacayo infekshanada caloosha waxaa ku dhacayo infekshanada maxaa la dhahay sababada soo cunugaas mar walba wuxuu booqanayaa isbitaalka waxay noqonaysaa mar walba in isbitaal la geeyo cunugii dhakhtar la soo tuso soo mar walba cunugaas dhakhtar la geeyo financial xawaacid waxaa ku dhacay familkii ama qoyskii ama bulshadii waxaa hoos u dhacayo dhaqaalaha ay ku bixinayaan caafimaad guud ahaan taas waaye iyo in infekshanadii waxyaabihii faafayay uu bulshada ka yaraado waxyaabaha aan bogaadinayno as dhakhtar caruur ahaan waxaa ka mid ah in hooyo kasto oo umul ah ama maxaa la dhahay naasnuujin ku jirto hadda umush ka baxda xataa naasnuujinta 2 sano oo naasnuujinta ku jirto inay hesho meel ay ku sameeyso naasnuujin marka aysan gurigeeda joogin marka qaar waxaa dhici karta hooyada inay baxdo banaanka aad cunug wado aysan heli karin meel private u ah inta la fadhiisato cunuga meel qaas ah inta la fadhiisato naaska ku siiso marka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed dadka goobaha waxbarashada goobaha maxaa la caafimaadka goobaha ganacsiga laho dhan waxaan ku bogaadinaynaa in ay mar walba u sameeyaan hooyooyinka space ama meel loogu talagalay naasnuujin qaasatan isbitaalada inay sameeyaan meel loogu talagalay naasnuujin loogu talagalay oo ilmaha marka isbitaalada soo booqdaan oo kale ama xaalado kale loo keeno hooyada maalinkaas oo inta isbitaal ku maqan tahay ama xaruntaas kale ay ku maqan tahay ee heli karto mar walba cunugeeda u baahdo inay naas siiso inay naas ka siiso waxaan kale aad u bogaadinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba joogan in ay ku dadaalaan in ay siiyaan naasnuujin sax ah 6 bilood ugu horeyso ee nolosha cunuga taasoo qayb weyn ka qaadan karto caafimaadkiisa horumarkiisa iyo koriimadiisa intaasaan ku bogaadinayaa iyo in hooyada laftirkeeda ay ku dadaasho in ayada jirkeeda ay nafaqeyso waxaan ognahay hooyooyinka inta badan waxay ka cawdaan in hooyada ay dhahdo naaskeyga kuma filna cunuga waxa ugu badan ee problemka ee dhaqaatiirtu u yimaadaan ee dhaha cunuga naas ma siin karo sababtoo ah naaskeyga kuma filna marka waxaan ku talinaynaa hooyadana kula talinaynaa qoyskana kula talinaynaa aabaha iyo familka intiisa kale in hooyo kasta ay nuujinayso lagu dadaalo caafimaadkeeda laga jeegareeyo waxay cunayso iyo waxay u baahan tahay nafaqo iyo vitamins wixii extra in la siiyo ee tahay in la siiyo hada mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.